بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إن لهلو جوي علمي يسن وحا أمهم سن وحيابيسا أساس كأه وحا كمدا علميغا أي ندونينو هدي أكو قرية هي لقد كلا لقدس إن برنو هدبا إسلام كلقدها كلا إن لبرتو سيدا أي أركا ميزان نوعنا أي ساريا أينو حلقدا إسلائينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى marka hore islaamka waxa weeyaan waa caalami nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa loo soo diray ummadda oo dhan sida ay oranaysa aayada ku jirta suuratul a'raaf aayada 158 ay oranayso qul ya ayuha naasu inni rasuulullaahi ilaykum jamii'a sidoo kale ay oranayso aayada ku jirta suuratul anbiya wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin sidoo kale ay oranayso aayada ku jirta suuratul furqaan aayada koobaad تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا داعيغا لوغا باهان yahay hadaba inuu islaamka u gaarsiiyo ummadda oo dhan ummadda u gaarsiinayo waxa muhiim ah inuu qofkaasi yaqaano dabiicadkooda waxyaabaha dhaqamadooda inuu yaqaano qofku taasna si fiican uma baran karo ilaa uu barto lisaankooda ama carabkooda uu barto من هنا اولا اسلامك ما دام uu yahay caalami waxa uu faraya qoom hadii la rabo in dacwad la gaarsiiyo in luqadooda si fiican loo fahmo taasi waa qodob tan labaad hadii inuu rabno islaamka inaynu ka celino dhagarta lagu dhagraya ama dad aad ka magan gasho aad u baahan tahay waxaad u baahan tahay inaad barato luqadkooda sida xigmadii saa'idka ama macruufka ahayd bay oranayso macnaha qofkii qoom luqadooda barta waxa uu ka magan galay ama waxa uu ka badbaaday dhagartoodii min huna islaamku sidoo kale waxa uu amraya in la barto qoom kale luqadood si looga badbaado dhakartooda waxaad arkaysaa nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu zayd uu amray inuu barto luqadii yahuudi marka la deganayd madiina si uu uga magan galo dhagartooda iyo waxyaabaha ay u maleegayaan lidalika zayd waxa uu leeyahay rasuulku intuu ay amray ayaan waxaan ku bartay luqadooda qoridooda iyo qorideeda iyo aqrinteeda labadaba 15 maalin dabcan asagu waxa uu ahaa reer ansaar oo waxa laga yaabaa inuu fikrad hore ka haystay luqadeeda laakiin sidoo kale waxa ذكي waxa uu sidoo ay u suurta galisay inuu luqadda si fiican u barto kadib wuxuu rasuulka aniga ayaana u qori jiray una turjumi jiray luqadooda qodobka saddexaad waxa weeyaan oo muhiimadda luqadda islaamku uu siinayo in luqada kale la barto waxa weeyaan cilmiga diinteenu waxay u amraysaa si guud in loo barto hadii la waayo dad aan garanaynin cilmigaasna waxay noqonaysaa wax la yiraahdo fardu ayn hadii fardu kifaaya ay soo dhaafto marka cilmi hadii aynu baranayno cilmigaasna ay dad kale ay haystaan cilmigaasna hadii inaynu ka dharagno aysan noo suurta galaynin ilaa inaynu sugno luqadooda maahane islaamku min huna sidoo kale waxa uu amraya in luqadaas la barto oo xigmadda saa'idka waata ay oranaysa sidoo kale macna al-hikmatu dalatul mu'min nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yiri macnaha meel kasta uu ka helo isaga ayaa u xaq leh marka si aad xigmadaas u soo qaadato aad uga dharagto hadii ay kugu waajibinayso inaad luqadda barato islaamku sidoo kale waxa uu waajibinaya luqadda inaad barato marka islaamku muhiimadaas ayuu siinaya luqadaha in la barto culimaduna waligood iyo allahood way ka hadli jireen muhiimadda ay luqadku leedahay ilaa iyo dadka mufakkiriinta iyo culimadu ay oranayaan macnaha qofkii laba luqad barta waxa uu ka kooban yahay laba qof xaqiiqatan maadaama uu laba luqad yaqaano ay sidoo kale ashcaarta aad ku arkayso mufakkiriinta ama culimada ay tadaawul ku sameeyaan ay oranayaan macnaha biqadri luqati almar'i yakthuru naf'uhu fatilka lahu 'inda almulimmati a'wanu faqbil 'ala darsi al-lughati wa hifdhiha فكل لسان في الحقيقة إنسان waxay leeyihiin qof macnaha insaanka kullama uu barto laba lisan xaqiiqo wuxuu noqonayaa laba qof buu noqonayaa maadaama uu yaqaan laba luqadood kii saddex luqad bartay wuxuu noqonayaa saddex qof kii 10 luqad bartay wuxuu noqonayaa 10 qof maadaama uu 10 meel ka kala turjumi karayo marka muhiimadaas ay siinaysaa muhiimadaas ayuu siiyay islaamku luqad kale in la barto marka intaas ayaa nagu muhiimsanayd aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh